أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمان شعبك الصوماليين ميل والبو دافا دنيدا aad ka joogtaan soo dhawaada halka aad nagala socotaan waa difaac qaran TV. maanta waxaan rabnaa bal wax yar inaan dul istaagno. maxay u soo kordhin kartaa hogaamiyaha fashilmay ee dadcunka ah, musharaxa dilaaga ah, سعيدني أسكرتي هون قال كالقالو دورة شديسة وكل دورة إنه كوكب بصدو حلك أقصر رئيس الدلك محا سكت قارنا شخصيات كا ما أنت كراستا وآدم دوبين وسيد داي كجرو ميدا شك كمجرو أو إنه يدخل بيلهاس كراس إسكالا إكسو جيدان لكن أيوكم محييين وين أصلاً محيو سو كورنيسا أصلاً محيو سو كورنيسا إلهي أنتي مجران تبرتي هرب الدم لوا كوي أبوت لأندك كوسو لاي وككل عررين كوا أنه محيو سو كورنيسيان وأن عراضة عداوة أنبو صوبة يسيدي سنة يا وح معناه وكجرو وكهلا يمجرتي marka waxaan rabnaa shakhsiyaadkan maanta oo aadamadooba jiro waa sii daayay inaan mid u dul istaagno. maxay yihiin, maxay bulshada ka dhaxyiin, stage ka joogaa nolosha ibn aadanka. inaan waxaan rabaa intaas dul istaago hadda insha Allah biidhnillah alkariim. shakhsiyaadkan oo yiri waa sii daayay horta waa shakhsiyaad stage ka nolosha meesha ugu xumeyd oo qof bil aadan istaagay way ka taagan. markii laga reebo hal nin oo aan garanayo oo aan wali wax aan ku arag dhibaato ah dawladda dhaxana wasaaradda arrimaha gudaha u shaqeynayo oo la yiraahdo Nuur Afay ma ahana inta kale waa dad ku qancay in gabdhahooda lagu horfoolo. waa dayuus nooca ugu xun ee ibn aadan bil aadanku waxyaalaha uu qaato waxa ugu xun oo qofka qaato way waa qof aan damiirkiisu noolayn waxbana ahayn nolosha bil aadanka waxba ka ahayn. waana dadka uu aruursado madooba noocaas way waa dad aan damiir lahayn danqasho lahayn. waxyaalaha lagu xushana waxaa ka mid ah oo lagu tijaabiyay in ay shaqaale laga dhigto waa in walaashii lagu horfuulaa, walaalkii lagu hordilaa, dadkiisa lagu hordhacaa. qofkaasi hadduu noqdo qof danqaday oo wax garanayo danqaday hadduu noqdo qofkaasi madooba waa ka cararaa, cadaawad buu u qaadaa. laakiin qofka inta in adeertiisa qaylinayso oo cabaadayso lagu horfuulo dabadeedna ogolaado oo yiraahdo sida yiraahdo sida Fartaag yiraahdo sida Maxamuud Sayid, qofkaasi waa buuxiyay category-ga laga rabay ee ahaa in uu hoos joogaha nidaamka iyo qaabka laga rabay inuu si ahaado waa buuxiyay. ibn aadanku ilaahay baa damiir siiyay, bil aadanka nool ilaahay baa damiir siiyay. damiirku qofka uu siiyay waxa xunna inuu ku diido wax wanaagsanna ku qaata damiirka. laakiin haddii aad cunno ku raadiso walaasha in la fuulo, haddii aad cunno ku raadiso dhiigga walaalka in la dilo, haddii aad cunno ku raadiso walaalka in la dhaco, haddii aad cunno ku raadiso in dadkaaga la xaqiro, haddii aad waxaasoo dhan qofka category-ga noocaas gaaro cid uu wax naftiisana wax ku tari maayo, kuwa uu qabiil mataqaanaa la wadaagana wax ku tari maayo. waa qof ay u dhammaatay way. waxaan rabaa caawa waxay isleeyihiin xoogaa waa yara waxbaad hesheen oo waxa la idin sii daaya askartii ceel qaalow. waxaan idin cadaynayaa dadka xogaga ah ee taageersan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inaad guulaysateen isbeddelka socdo inuu guulaystay. waxaan rabaa inaan idin sheego qatartan waa qatar la rabay dawladda in lagu carqaladeeyo guusha soo socotay isbeddelka socdo mid in lagu carqaladeeyo la rabo ahaa. waxaad ogsoontihiin kursigii Fahad Yaasiin oo beeshiisu soo dooratay in dulmi lagu haystay waa loo samray yaan doorasho la carqaladeen. waxaad ogeydeen in loo samray kuraastii taallay Garbaharey ee deegaan doorasho 17 September in Calqalow xal ku taalo oo Kenya oo KDF lala aaday waa la samray. maanta markay ka dhiman tahay muddo 7 cisho ah in la yiraahdo askartii Calqalow oo cid dooratay iyo cid ay matalaan iyo Siix Nabadoon iyo cid ay ku fadhiyaan matalaadooda aan jirin baan fasaxnay. macnihii wax la rabo waxay ahayd in dalkan dhibaato la geeyo. nin baa lagu biyadiijinayay asaguna waa fahmay waa ka gabaday. farmaajo waa ka gabaday. farmaajo shalay way joogan kuwa ka xun oo ka liitaa joogay. alankay baa joogay,
sinsii baa joogay daqaraa joogay wax codahay siiyaanna ma jirto ina biixi baa joogtay dalays baa joogtay waa jugjug meeshaada joog bay ahaan wax codahay farmaajo siiyaanna ma jirto hadday joogaanna waxba lama joogin hadday maqan yihiinna waxba lama maqnayn awalba niman lalahaabay ahaayeen horta waa inaa intaas ogaataan baa la rabaa haddana haddii la sii daayo waxay kordhinayaan oo ilaahay untay horta ma jirto labaa marka ummadda u taallo annagu marka waxaan leenahay haddaana xoogaga sharafta leh wadaniinta dagaalamaya difaaca ku jira shanta sano la soo dhaafay waa guulaysanay guusheenna la raba in la carqaladeeyo la hor istaago caqabad laga dhigo waxaasoo dhan waa ka gabanno waa fahnay faraha ka qaada asaga ha ismatalo faadamarnayn ayada ha ismatasho ismaan libaax asaga ha ismatalo danahu carab asaga ha ismatalo danahooda ayagaa yaqaano mursal khaliif asaga ha ismatalo mursal khaliif waxaa weeye waa ninka Mike Bryden gacanyaraha u ah ee ka tirsan sahan group waa ninkaan islahayn ummadaan waxba u soo bartay oo dad wuxuu ka dhashay beel ballaaran oo laga bilaabo afka baar dheere saa u soo wareeg ilaa ceel waaq ilaa iyo kismaayo degan way mursal khaliif waa ninka ka bixiyay lacag wiil uu adeer u yahay oo la dilay oo meydkiisa lama qaaday leeydi xaafadda shaqaalaha $2,500 ka bixiyo way shakhsiga marka saa u liitay ee kategorigaas xun ku jiro cid uu matalaya annagu ma naqaanay madoobihiisa ha matalo mursal khaliif iyo waxa la mid ah annagu ummadaan ma matalaan mursal khaliif islaantii eedadiiseed waa tii aan soo dhigay beejka difaac qaran oo dhays anigaaney gacanta waxaan dhalay iyo waxay dhaleen Kenya xasuuqday Kenyadana waa mid mursal dabadhilifka u yahay mursal khaliif qaxootiga laga qaaday waxbuu soo bartay waxaan islahayn waa dhakhtarkii ugu horeeyay ee beesha u soo baxo waxaan lahayn deegaanadaas cawsqurun iyo buusaar iyo maxay ahayd galgasha ilaa taraka ilaa iyo galgasha cabdiqayr ilaa gariley ilaa iyo jannaay cabdalle ilaa iyo goloshimbir ilaa iyo beerxaani ilaa iyo kismaayo laga gaaro beesha walaalaha tarxeed degan ayuu wax tarayaa oo caafimaadkooda ka shaqaynaya oo daawo u keenaya halkii waxaa laga sugaya saakayto inuu addoon ku soo hogaamiyo ayuu ummadda u keenay bil ka hor waxaa lagu dilay magaalada kismaayo duleedkeeda deegaanka cabdidhoorre u dhaxaysa beerxaani maxamed cali cabdi bayow oo ah nin talxa ah oo cumar ibraahim ah oo reer cali ah oo reer bayow ah mursal khaliif iyo kuwa dabadhilifka ah la jooga kamaysan hadlin way ku qanceen waa macnaheedu kategoriga qofka laga rabo inuu heerka stageka nolosha ka gaaro nooca laga rabo mursal khaliif marka cidna wax ku soo kordhin maayo naftiisana wax ku soo kordhin maayo nin la leeyahay siile waxaan rabaa inaan ummadda guud ahaan jubbooyinka degan aan u sheego halgankii aan ku soo jirnay 5 sano u dambeysay waa guuleystay waa miro dhalay waxba federaalka ha ku jaangoynina waxa maanta socdo madooba waa dhintay dadkuna way tashanayaan waxaan ka soo shaqaynay beentii ummadaha loo kala sheegayay ayaan ka soo shaqaynay madooba wuxuu ku joogay maskax aaranjaan iyo awood Kenya ku joogay meesha aaranjaan waa dhimatay Kenyana waa dhimatay waxaan kala helnaa leenahay madooba waa kala calaf qaadaynaa waxba walwala naftiina ha gelina waxaan idin cadaynayaa oo hadda hortiina ka cadaynayaa farmaajo shalayba alankay iyo taagan iyo daqarre iyo kuwaan dabadhilifkoo taagan ayaa Soomaali u codaysa haddana Soomaali baa u codaynayso waxaa la rabay shaatigiisa la wasaqeeyo maadaama uu yahay ninka ugu waxqabadka badan ugu sharafta badan dadka maanta kursiga damaacinay kursiga waxaa damaacinaya xasan sheekh oo gabdhihii gaday oo dhaqaalihii dalka boobay oo masaakiintii qaxootigeed guryaha ka rartay ee qandaraasyada ugu faraha badnaa qaatay ee dhaqaalaha aragta sameeyey ayaa maanta kursiga damaacinayo dalka waxaan u qabtay waxaa kursiga damaacinayo siciidkii Puntland oo maamula baarlamankeedii weeraray oo dilay oo kufsaday oo dad ku laayay waxaa kursiga damaacinayo siciidkii boosaaso oo 30 sano laga qaxin weeraray waxaa kursiga damaacinaya siciidkii salaadiintii Dubai soo laahiyay ayaa damaacinaya waxaa kursiga damaacinaya siciidkii nabadoonnadii Cumar Maxamuud weeraray waxaa kursiga damaacinayo madaxweynihii dalkaas soo xukumay ee yiri badan meel lagu siixo aniga ma ogeyn badan meel lagu siixo waxaa weydiisiin madaxweynaha wasaaraha iyo wasiirkiisa
waxaa kursigaa damaacinayo kuwii dalkan dhibaatada u geystay, waxaa kursigaa damaacinaya kii naga dhigay gobol ka tirsan gobollada Tigray horaan uga hadalnay beher beenu sabooj gambood sabaad. waxaa kursigaa damaacinayo kii ra'iisul wasaaraha dalkan looga dhigay ee loo dhiibay ee Peterka Kawanja xafiiskiisa soo fariisiyay ee sirtii qaranka cadawga Kenya la wadaagay dabadeedna miiska ka soo dhacay yiri doorasho wadan ogolaan rabaa. dadka Soomaaliyeed xildhibaanada kuwa damiir lahaa ku jiro oo nool, kuwa badan oo wax fahmaya ku jiro, kuwa badan oo wax garanaya ku jiro. intaan oo isbaara ah in Fahad Yaasiin la qabsado, in cilqaal loola cararo, in doorashada la diido, waa isbaara loo soo dhiganayay hogaamiyaha talada haya ee aqlabiyada shacbiga Soomaaliyeed codkooda ku fadhiyo ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qodbadiisa caawa taariikhiga aan maqlaysay nin yiri shacbiga iga dalbaday yiri Soomaaliya ma jira asagu ahaa caan faantaan baa la rabaa. inta marka in la jaa'ifeeyo oo la dhibaateeyo oo hadlo oo laga qaso oo shaarkiisa nadiifka ah laga wasaqeeyaa la rabay. annaga ka shacbi ahaan marka dadkii dhibanaha ahaa ee aan maanta geyn inay Mursal Khaliif iyo MM iyo Faaduma Nayn ay matalaan dadkii aysan mudnayn maanta inay noocaas ama aan geyn noocaas inay hor istaagaan oo damiirka lahayn. waxayna ogolaanay oo aan yeelaynaa Soomaali baan u tanaasulaynaa mar labaad madaxweynuhu in aanan carqaladayn dib u doorashadiisa oo aan hore uga socono. waxba soo kordhin maayaan waa asal madoorshoona wax macno oo leeyahay shalay waa taagnayn shalay madoobay oo kala ordayeen ayadoo markay gabagaba inoo tahay dib u xoreynta dalka, ayadoo gabagaba inoo tahay nidaamka ciriiriga ah in laga baxo dalkuna uu dowlad yeesho. waxaan rajaynaynaa insha Allah ninkii maanta ku fakarayay inuu madooba sii noolaanayo ma noolaanayo madooba. ninkii ku fakaraya Aaron Janni sii joogaysa ma joogayso, ninkii ku fakaraya Kenya inay sii joogaysa ma joogayso. wallaahi billahi wa tallahi baan ku dhaarnay. waxaan markaa leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo dadka wanaagsan ee wadaniyiinta wixii dhacay way dhaceen, dhacdada xalay dhalay ka noqo. hadafkeena iyo yoolkeena ay rajada Soomaaliyeed baa wax walba ka weyn. rajada Soomaaliyeed cadawga sirdoonka Imaaraadku inay carqaladeeyo rabay, sirdoonka Kenya inay carqaladeeyeen bay rabeen, waa loo sii daayay. madaxweynuhu waa ka gabaday. nin aad u yaqaano siyaasadda aad u fahansan, cabqari ah, fahansan way. dhagar kastoo cadawgu soo maleego intay soo maleeyeen ka hor buu fahmaa, waana ka gabaday. madaxweynaha markay aanan dhibaatayn annagu haddaan nahay shacbiga Soomaaliyeed, Soomaaliya oo dowlad hesho ayaan annagu xaqeena ku heli karnaa, dulmigana nooga bixi karaa. hadday Soomaaliya dowlad weysane dulmiga dad iska dulqaadi karo oo isdifaaci karaan. waxaan rabaa inaan iga caddeeyo oo aan hoos ka xariiqo shalay markaan halganka bilaabaynay Tigrayna waa la haystay, Kenyana waa la haysatay. maanta Tigray waa jabay, Kenya nagu hartay. salka barida baashi nooga jirta waa iska saarnay, tii isha nagu hartay waa iska saarnaa, waa madooba. salka waa dhiganay. saaka gobolkii Gadaweyn aha waa xor, saaka Gadaweyn waa xor. daba dhilif laga waraysan maayo. gogashii shacbiga Soomaaliyeed ee jubbooyinka ee Soomaaliyeed ayaan dhigaynaa. dadka isu imaanayo ka bacdina labada gobol ee naga maqan ee midna shabaabka haysto midna ay haysato Kenya saan u xoreysan lahayn baan ayadana falkeeda garaynaa. madooba saas u dhintay. madooba marka MM iyo Faaduma Nayn waxba kama celin karaan. marka waxaan leeyahay xogagan waxaas ha u bixina. waxaas gel laan qaaday ma dheero, waxba ma qaadayaan. shalayba dadkan waa la haysta, dadka inaad xoreysaad u taagnayd bay ahaayeen. shalay waxaa joogay Alankay, maantana Mursal baa jooga, waa asal madoorshe, waa un sideedii, wax macnaa male. shalay ina Biixi baa joogtay, MM baa maanta jooga, wax macnaa male. Faaduma Nayn baa imaaday, wax macnaa male. dadka in la xoreeyo la rabo waay. marka teendadaas maalmaha inoo haray haddaan nahay xogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed inaan maalmahaasi hawlaheena wadano, shaqadeena wadano, madaxweynaheena taageerno, dalkana hore u socodsiino ayaa nagala rabaa. gabar gadbad dalgad jaajuus dalka waxba ka noqon maayo, Soomaalina waxba u noqon maayo, annagana ogolaan mayno. adigu marka waxa leen ka rabaa jambalka leedin tuuray waa laga gabadee ka gabada. waan ogahay inayna mudnayn maanta in waxa leen ku sameeyay ma mudnidin. waa ognahay MM inuu idin matala reer Garbahaaray ma mudnidin.
وان أغنى هاي إن دتك دولة ودقن أي ساكة الدنيا ووح قبل يملا كتير على أقول إيه ساكة تروام ترى وعرف كسر علي وقاري كويل صارنيد ما قرنين قرب هالري ساكين ترى وحنا ترى وحي متحمل ترى فاضمنين وحصلنا ما جيدا لكن كو قبتي قدر الله والله قاتا حكبقنا حلبانا ما أهم إذا ما مثلا شغلكم مريهدين ودتك اللي هيستي هوستيج كأها هون قار كأها اللي هيستي ودتك هذو تاجنيدين إن الحريسان شري سؤمين التاجنين إن ألنكي كحريسان قويسي أحمد مدوبي ما ترى كحرية مرسل داوان كسوين دكتور بوها داوان كسويني إنه عيل واقعي قلقشة إيو بوسار إيو عصقورن إيو ماشي اللي محايت التركة إيو برميل إلا يفافحنون إلا يدار معلن وجيا داوان كسويني إيو عدي سير هريس داوي إيو MC أجي إيو عافمات إيو هرمرقي هالكي وانا قال لك سوقي واكن ما انت دكسيدا مدو حرين شخص دينتي oo aad u liito oo aan diin iyo iimaan midna lahayn way marka waxaan sameyn doonaa insha Allah halgankii aynu wadnay horan u wadayna gamaalma inoo haray dad ba markii la istaago stage ka la soo istaago suuxi doono dad ba suuxi doono daljirka dahsoon daljirka saaxiib daljirka sid goonay isoo arrimo badan baan aad kaaga rabaa isoo waxaan tusi doonaa dani oo dhiiga ku furmay oo istaaga ka dhacay waxaan tusi doonaa xasan sheekh oo suuxay waxaan tusinaa walaaq cabdiraxmaan absuuro gronoga ka dhacay waxa soo dhan way imaan doonaan waa maalinta ay maxamed cabdullaahi farmaajo soo baxay dad badan baa nolosha caadi u dhiman doono sidaa la aldigeed yaana ka carqaladeen marka yaana ummadda Soomaaliyeed hor istaagin yaana caqabad noqon kuwa shalayba hongaarka way joogeen waa la haystay Ismaaciil waa la haystay madoobana dadkan waa haystay madooba shalay inda koray waa haystay maanta dhuumaal waa haystaa birribid kale waa haystaa inta marka kuwa laga xoreynayo qof walbo go'aan waa inaad ka gaartaa gobonnimadaada wiilkaaga dhaxalkiisa waxay ku jirtaa in aad waxa banaanka ka marta una istaagtaa halgan midaysan ee dalka looga dulqaadayo culayska dagarta cadawga uu maleegayo dad la socdaan nahay dad fahansan baan nahay dawlad qaangaartay oo gaamurtay baa dalkeena ka jirto insha Allah biidnillaahi alkariim صاحب فيسبوك جيجا ما واتساب كيجا هذا ويجا سوا درويش آد بنكون سلامية وحن مركز اللي حقق جوهوش واسعتا جوهنا وح معناه شري بوجه جوجر واحد سوكر لنا يمجرته هرا نصعونينا هل كان كي أنا وذنا دبو ديسكي يهوليه متقالنا دبو حرينتي ووذنا مالمها يركع شرية تون كمي أنا سجنه وحي أنت كدم بيو أما الصومالي الدولة أو محمد عبد الله فرماجة وحكومة إيماني يسوع أما ضد بأنه هو دركت لك بدنا باتوا تشري الناية أنت أصلا لا يا أمد الصومالية هقول يسوع ضد كان ما أنت ماشي يمنا حتى قفر الجلة وبلي آدم نور أفي أنا أسوي زاردا كشغيري وافن مركي وبلد حاول جوجيني أسوق سيسو وتناقاني أسوق جرش والنهبان قاني نسك أفقابن ضد كأنا فلقادين ka shaqaysto mataqaanantiisa ka shaqaysto aha waa la soo socday wasaaradda arrimaha gudaha galay nin iska xamaasho oo afgaaban u ahaa haddana wuxuu noqon doonaa alla naga og laakiin kuwan kale qof dhintay waay qof nool ma ninka la yiraahdo mursal waa dhintay waa is died person waa qof aad u liito way waa qof qurmoon oo aad u xun way waxaas inta idin matal lahaayeen ayaan insha Allah waxaan leenahay idin matali karaan shalan alanka idin mataleen maanta mursal idin mataleen haloo diyaar garoobo inaan waxaan iska dulqaadno intaan iska dulqaadina maalmaha inoo haray maalmaha doorashada ummadda Soomaaliyeed yanaan caqabad ku noqon madaxweynuhu waa guuleystay waxaasna waxaa markay sirdoonka imaaraadku ay maqleen iyo Kenya ay ogaadeen in aqlabiyadda xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haysto ayaa jambalka la soo tuuray jambalka la soo tuurayna waxa waaye madaxweynuhu waa ka gabaday siyaasad qaan gaartay oo gaamurtay u hayaa marka inta la socdaan leeyahay waxaan rabaa halkaan fariin uga diro aadan madoobe gudoomiye baarlamaan baa tahay saa doontaba ku imow waxa doontaba samay waxaan arkaynaa sawirro aad u qaldan xafiiskaaga shakhsi aad u xun oo jaajuus Kenyaan ah xafiiskaaga fadhiyo aqoon aan u leenahay
shakhsiga tiitalka uu kugula fadhiyo ma garanayno wafdi kasta oo ku imaanayo uu ka ag fadhiya waa ninka maxamed ganay liiraado oo reer Manchester Time UK ahaan jiray ee visa delivery-ga ahaa ka bacdina ku biiray sirdoonka Kenya iyo Sahan Group iyo Axmed Madoobe groupkooda ku biiray xildhibaanka cabaarka Axmed Madoobe soo ahaa maxamed ganay shaqada u dhiibtay ummadda waa caday shaqada maxamed ganay ninka yantaar kursigiisii xasan eelay qaatay shaqada aad u dhiibtad u magacaawday inaad noo cadaysaan rabnaa intaasna aadamadu waa weydiinayna Soomaaliya ha guulaysto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.